xarunta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabon oo waxa ceel rig biyood lagu qodayo ka hirgeliyay aqoon-yahan Axmed Maxamed Ismaaciil Nadalo oo ku nool dalka Mareykanka isla markaasina kamid ah jaaliyada gobolka Sanaag ee ku nool halkaasi ceelkan oo lagu magacaabo 120 habeen ayaa waxa laga hirgeliyay duleedka waqooyi ee magaalada Ceergaabon waxaana uu kamid noqon doonaa ceelasha biyaha siiya magaalada Ceergaabon munaasabadii lagu daafurayay ceelkan 120 habeen oo ka qabsoontay isla goobtaasi ayaa waxa ka soo qayb galay isuduwayaal ay kamid ahaayeen isuduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha ee gobolka Sanaag mas'uuliyiinta ceel biyoodkan madax dhaqameed ganacsato aqoon-yahan iyo martasharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay injineerka dhismaha ceelkan fulinaya iyo Maxamed Ciise oo ahaa maamulaha shirkadda Hareero ee ceelkaasi fulinaysa gobol degma ahaan waa ceelka ugu dheer shirkadda Hareero ayaa qotay waxay qotay 273 mitir biyihiisu waa biyo wanaagsan oo macaan hadduu bidamka Ilaahay ku roon yahay waa ceelka ballaadhaan 14 baan ku qodnay ballaadhaan dhererkiisuna waa 273 soo ku qabano gaariga 30ka wuxuu ku buuxiyaa 15 mir ka yimaado ama dibadda jooga ama xabarto ama ka shaqeeya isagoo qiiro wadan leh ayuu yimaadaa ama habaad geliyo ama cilmiba hala yimaade marka wuxuu loo baahan yahay in markaa in la taageero oo la gacan qabto oo lagu daydo sidoo kalena waxa halkaas hadalka isaga dambeeyay isuduwayaal madax dhaqameed ganacsato aqoon-yahan iyo martasharaf kale wuxuu yimi gobolka Sanaag ayuu yimi magaalada Ceergaabon waxa uu darsay baahiyaha asaasiga ah oo aad iyo aad u farabadnaa kadib waxay la noqotay in kolka gobolka uu wuxuu qabto una ka caawiyo xagga biyaha iyo dhinaca beerahaba dhalinyaro badanna la shaqaalaysiiyo gobolkuna wax soo saar yeesho dhanka beeraha taasina waxa ku ayuu qodayaa horta waxaan leeyahay inankaas waa mahadsan yahay waxaana oran karaa waa xidigii reer Sanaag mar haddii uu waxaanu markaas wax kale oo aanu samayno garmayna laakiinse waxaanu u ducaynaynaa mashaariicda uu wado in Ilaahay uu ku guuleeyo aanan qaaliya rag sida oo kale ku fakarana waa loo baahan yahay isagana waxaanu leenahay Ilaahay tacabkaaga ku barakeeyo oo ha ku kordhiyo kan iyo taaka waxa isagana taariikh ugu filan waxa weeye intaas iminka jaarkiisa ah oo dhan oo manaha ku jirtay oo waraabiya sadaqad ugu filan iyo shimbiraha ka cabaya iyo quraansan moorala waxa ugu filan dadka hantida inta leegta uu soo wado daayo ta iminka uu geliyay waxa weeye waxa marka doqontu daashaabaan ninkii ciyaar Soomaaliya muxuu yiri gacantaydu dabicda kadibada jooga qurbaha jooga waxaanu ka codsanaynaa sida Axmed Nadalo inay aaminaan dalkooda sidii chief caaqilku sheegay ay dalkooda aaminaan gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha gobolka Sanaag ceelkan barakaysan aad baan u soo dhaweynayaa waana ku amaanayaa waayo in badan baan gobolka joogay ceel sida loo soo dhaweeyo ama loo ixtiraamo ama loogu duceeyo anigu maarag marka ceelkan sidiisa ayaa uu duceysan yahay Barkhad Maxamuud Gedi